waxaa soo haray haddii la fulinayo doorasho hal cod iyo hal qofa gobollana maqan yihiin sidee la yeelaya waxaan rabaa horta arrintaas inaan saxo kow gobollo maqan oo Puntland gacantooda ka maqan oo gobol ahaan uga maqan ma jiro gobolka Sanaag iyo Sool baa xusnay baan u maleynayaa gabadha adeerka u ahay gobolka Sanaag degmada la yiraahdo Ceerigaabo oo qaybsan ayaa hadda gacanteena ka maqan way qaybsanta macna qayb ahaan baan ka hadlayaa ayadana waxaan rabnaa degmadaas dadka walaalaheena oo Soomaaliland ku abtirsado oo inala degan haday waxayna la dhisanayaan waa soo dhaweynayna mustaqbalka haddii kalena waxaan rabnaa gaalkacyaba laba maamul baa ka degan oo Puntland dhinac weeye dhinaca kalena waa Galmudug sidaas oo kale inay noo noqoto haddii lahayn gobolka Sanaag horta xaaladdu sidaas weeye boqolkiiba 99 waxa weeye waa gacanteena oo wax ka jira hadda culays ma jiraan gobolka Sool maxayna ka maqan aynu xisaabtanne magaalada Laascaana Soomaa ayadana shaqadeedu waa socotaa ayadoo aan ku daarin dibna ka jirin ayaa waxaan rabnaa haddii la haydmo inaan saan oo kale shirar ugu qabanno waxa intaa dheer waan rabaa qodobka inaan dib u celiyo waxa noo qorshaysan dhulka Puntland ee dastuuriga inay doorashadu ka dhacdo haddii la hayn sidee uga dhacaysaa waa arrimo farsamo weyn xilligooda la gaari doonaa haddii la